بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب بيال ولا ليال runtii aad iyo aad baan idinku xiisay muddo ma soo gelinin muuqaal maanta wuxuu noqonayaa muuqaal aan soo geliyay muddo kadib waan idin xiisaysaa igu xiisteen oo kale anigana aad baan idin jecelahay sida ay jeceshihiin asxaab badana fariimo ila soo wadaagtay maxaa muuqaal u soo gelin weeyday maxaa ayaamahan maxaa kugu dhacay laakiin waa iskeenay maanta ayaan dib u bilaaban doonaa hawlaheennii haddii aad ka mid ahayd asxaabtii markii hore muuqaaladeeda daawan jirtay oo ka daawan jirtay Facebook-ga maanta waxaan rabaa inaan kugu wargeliyo inaan muuqaaladeeda xooggoodii iyo intii badnayd aan ku wareejiyay YouTube-ka kanaalkayga aan YouTube-ka ku leeyahay Cabdicasiis Mucjis haddii aad ka mid tahay asxaabteyda igu xiran ee YouTube waa si wanaagsan haddii aanad ka mid ahayn asxaabta igu xiran ee YouTube-ka fadlan subscribe saar kanaalka aan ku leeyahay YouTube-ka ee Cabdicasiis Mucjis linkigiisana waxaan soo gelin doonaa qaybta hoose commentiga u koreeya ee boggayga Facebook-ga ka arag linkiga kadibna subscribe saar kanaalka aan YouTube-ka ku leeyahay waxaan rabaa muuqaalka ugu soo horeeya aan soo gelin doono YouTube-ka inuu noqdo su'aalo iyo jawaabo Q&A ama questions and answers su'aalahaasna waxa idin soo weydiin doonaa adinka muuqaal ayaan soo gelin doonaa YouTube-ka marka aad kan daawato u wareeg dhanka YouTube-ka muuqaalkaas daawo qaybta hoose igula soo wadaag su'aasha aad jeclaan lahayd inaan kaaga jawaabo su'aashaaduna ha noqoto mid qusaysa shaqadayda ama noloshayda waan kaaga soo jawaabi doonaa waxaan ka soo sameyn doonaa video aan toddobaadka dambe soo gelin doono anigoo ka jawaabi doono dhammaan su'aalihiina maadaama aan kamarada horteeda soo fariistay oon maanta idin imid ma idinka tegi doono ilaa waxaan idinla wadaagi doonaa laba xikmadood xikmadda koowaad waxay leedahay sakiintu si kastay u af badan tahay geed laguma jaro faaskuna si kasta uu adag yahay timaha laguma xiirto mid kasta wuxuu macno iyo mug iyo miisaan ku leeyahay halka uu joogo dadkuna waa sidaas oo kale qof kasta wuxuu ku wanaagsan yahay halka iyo noloshiisa shaqada uu buuxiyo haddii aad isku daydo inaad fildiyada iyo meelaha kala duwan ee nolosha aad qoobsato waa ku wareeraysaa shakhsiyadaaduna waa ku dhimanaysaa isku day inaad meel uun ku eqaato meeshaana aad daba socoto riyadaada rumaynteedana aad ka dhigato kariir iyo waxaad ku noolaato xikmadda labaadina waxay leedahay geerida horteed ha dhiman oo looga jeedo adigoo nool ha rajo dhigin oo ha isdhiibin ha noqon qof quustay oo nolosha ka dhacay adoon geeriyoona god lagu geynoo lagu aasin oo ciid lagaa dul marin ha noqon qof rajada ka dhintay waxaa si caadiya u dhintay oo ka daranba qofka la aasay qofka rajadiisu dhimatay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalka fadlan ka mid noqo asxaabteyda YouTube-ka halkaasaan olole ballaaran ka samayn doonaa halkaasaanan marka u guuri doonaa muuqaaladeeda inta ugu badan iyo xoogoogana waxaan kusoo gudbin doonaa YouTube-ka subscribe saar kanaalka aan YouTube-ka ku leeyahay aad iyo aad baa u mahadsan tahay thank you